Marka ugu horreysa ee aad maqasho magaca Afganistan, waxa ugu horreeya ee maskaxdaada ku soo dhici kara waa dagaal, kooxaha hubeysan iyo khatar. Sawirkaas ayaa ahaa midka ay warbaahintu soo tabinaysay sanadadii ugu dambeeyay. Laakiin maxaa dhacaya haddii aan kuu sheego in Afganistan ay leedahay mid ka mid ah cunooyinka ugu fiican adduunka? Sidaas darteed 24 saac ee soo socda waxaanu ku noolaan doonaa dalka laga qariyay indhaha caalamka. Waxaana joogi doonaa magaalada Kaabul. Waxaan tijaabin doonaa cuntooyinkeeda gaarka ah. Waxaana ku tusi doonaa dhinaca wanaagsan ee aadan horay uga arag dalka Afganistan. And showing you a side of Afghanistan you probably never seen before. And the timer starts now. Saacaddu hadda ayay bilaabanaysaa. Waa aroor hore waxa aan tijaabin doonaa cunto dhaqameedka Chini. Ma fududayn in aan helo maqaayad sababtoo ah ma aanan kala aqoonin magaalada Kaabul, laakiin dhalinyaro u dhalatay dalkan ayaa iga caawisay helitaanka maqaaxi subaxa hore aan tago. Waxaan dalbanay cunto waana maraq iyo hilib dhaqameed Afgaani ah oo si tartiib ah loogu kariyay dheri dhoobo ah. Karinta dheer waxa ay ka dhigtaa hilibka mid aad u jilicsan waxayna maraqa u yeeshaa dhadhan macaan. Waxaana cuntooyinkan lagu daraa hilib idaad, basal, yaanyo taasoo cuntada ka dhigaysa mid soo jiidasho iyo nafaqo leh. The broth will really absorb the flavor of the meat, so it's so hearty and very warming dish. Maqaayadani waxa ay shaqaynaysay in ka badan 80 sano. Subax kasta waxaa la furaa 6 aroornimo. Sidaas darteed waa inaad timaadaa goor hore haddii aad rabto inaad tijaabiso cuntadeeda. Markii la gaaray 1 duhurnimo ee Kaabul, waa xilliga qadada, laakiin marka hore waxa aan u baahday in aan lacagta sarifto oo aan u bedelo lacagta Afgaaniga ah. sababtoo ah lacagtii yareed aan haystay ayaa iga dhamaatay. But first, we need to exchange some dollars to Afghanis because my money ran out. And how do you change your money in Afghanistan? Well, it's pretty simple. You look for guys on the street that have big stash of Afghanis. I was looking for the exchange when 2 Afghan gentlemen helped me exchange my money. To my surprise, they wanted to take me to try one of the most traditional dishes in Afghanistan. What's your name? What's your name? Khalid. Khalid? Yes, my name is Sohail. Sohail. We are authentic locals. Okay, my name is Matt. Okay, I trust you guys. I feel the good energy. It's okay. Afghanistan, lacagta sarifkeedu waa mid aad u fudud. Waxaadna raadisaa haddii aad u baahan tahay in aad lacag sarifato. Rag ku sugan wadooyinka oo jeebabka ku sita buug buluug ah. 2 nin oo u dhalatay dalka Afghanistan ayaa iga caawisay sarifka lacagta. Waxayna igu casuumeen in aan la cuno cunto dhaqameed caan ah. Waxayna ii wadeen maqaayad ku dhex taala suuqii hore ee Kaabul. Waxaana maqaaxida markii aynu tagaynay joogay dad badan. Waxaan fadhiistay dhulka. waayo ma aanan helin boos igu habboon oo markaasi bannaana. Waxaana loo keenay cuntada qabuuli balowo, bariis, karooto, sawiib iyo dhir udgoon oo khudaar lagu daray. Waana cunto culus oo aad u badan. Waxaa la socday rooti Afgaani ah oo qof kasta ku cunayo. Habka loo cuno ayaa ah inaad jebiso rootiga oo aad ku qasto bariiska, kadibna aad tiraahdo bismillaah oo aad bilowdo cunistiisa. Brand promotion, Huh? Yeah, for they lucky I like cola, yeah. As you can see in Afghanistan, everyone is sitting together, everyone is sharing their meal, and literally everyone is doing the same. So many people right here as well, means it's a popular place. You eat kabuli palau every day or no? No, once a week. Once a week. You cannot finish the kabuli palau. Kabuli palau is so much food. When you're gonna give it away to homeless people, this is what people usually do. You cannot waste food, so just give it away to someone that needs it more. I want to try more food, so I'm not gonna force myself. Afghanistan, dadku waa kuwa wadaaga cuntada dhaqan ahaan. Waxaana caado u ah in cuntada soo harta la siiyo masaakiinta, waana dhaqan u gaar ah muslimiinta. Markii aan sii socday waxa aan arkay in rootiga Afgaaniga ah laga helo gees kasta oo magaalada ah. Dukaamo badan ayaana maalin kasta iibinaya 3,000 oo rooti ah. Waxaana lagu dubaa foornada dhoobada ah iyada oo lagu dhijiyo darbiyada. Ka hor inta aanan saaxiibaday cusub kala tegin si fiican ayaynu isku macasalaameyn. Habeenkii waxa kale oo aan tijaabiyay cunto kale oo caan ah sida kabaab iyo kalabi oo ah cunto u eg beegar la shiilay oo khudaar iyo basbaas lagu daray. Waxaana caadooyinka dadka reer Afghanistan ka mid ah in cuntada lagu daro rooti
isla markaana lagu cuno gacanta midig. Waxaa la yaab igu noqotay in aan arkay maqaayad lagu magacaabo Starbucks oo u eg Starbucks, halkaasi waxaan ka cabay milkshake. Saaxiibadii u dhashay dalka Afganistan weligood ma ogolaanin in aan bixiyo lacagta aniga, mar walbana waxay yiraahdaan adigu waxaad tahay marti. Taasina waxay qayb ka ahayd martisoorka cajiibka ah ee dadka reer Afganistan. Everyone in Afghanistan pay for me. Let me pay one time. No. You're my guest. One time, bro. No. I want to pay one time. It annoys me so much that I cannot pay. I want to pay at least once in this country. Let me pay. Inshallah. Tashakkur. It's time to say goodbye and yeah, appreciate you a lot. Maybe you have something to say for the world. Maybe you wish something for the world. I wish to everybody in the world to come to Afghanistan and enjoy the delicious meals and the view and everything around us. The locals are just for you. Yeah. And we can help you go everywhere around your. Ugu dambeyntii halkani ayaan ka gatay casiir iyo cabitaan fudud, waxaana ogaaday in meel kasta oo wadooyinka Kaabul ah ay leedahay dukaamo yaryar oo laga helo cabitaanka iyo cunooyinka fudud. Waa maalintii ugu dambeysay aan rabo inaan ka tago dalka Afganistan, waxaana garwaaqsaday oo aan ogaaday xaqiiqada ah in Afganistan aysan ahayn goob dagaal iyo kooxo hubeysan ay joogaan. Waxaana la kulmay dad degan oo martisoorka ku fiican iyo dad gob ah oo sharaf badan. Marka xigta ee aad maqasho Afganistan, waxaan rajaynayaa inay noqdaan waxa ugu horeeya ee maskaxdaada ku soo dhacaya: nabad, xasilooni iyo weji furnaan. Adiguna haddaad halkan nala soo gaartay, ha iloowin inaad muuqaalka like saarto oo aad ka mid noqoto saaxiibada qiimaha badan ee nagu xiran. Wow. I have to leave most of our conversation out of the video, but a lot of people have lost good jobs after a new government came in power, so people like him are now forced to make a bare minimum working as taxi drivers. Jake, no problem. No problem. Okay, thank you. I'm happy. Thank you so much. But it's not my house. You take me everywhere, you show me around, good food, you buy me ice cream. I'm very happy. Thank you. Wish you all the best. Have a great day. Thank you. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Okay, my driver took me to get some ice cream and he said, wait here, I'll come inside, I'll buy you. And he's going down there. He's gonna buy me ice cream. Bro, I love Afghanistan people. They're so friendly. They're just so friendly. They just buy you food and they don't let you pay, bro. Look at that, he's bringing me the ice cream. Okay, tashakkur. Wow. Look at that, so it's covered in peanuts, bro. Wow, so creamy. I thought I'm so full, but you know what they say, there's always room for dessert, so. And you ever wanted to leave Afghanistan? I don't have good job. About that, the people have problem. This problem for why leave Afghanistan? If you have good job like before, I'm not ready to leave Afghanistan. You like your country? Yeah. What is the minimum salary? $200. $200? $200 and $300. Oy. Wow, that's crazy. He was going so fast, literally.